السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. channel ka daawanaysiin waa Leila Axmed official. channel ka ku cusub tahay subscribe, like, share, comment qurux badan ka soo bixi. hadaa hore noola joogtaan daawashada daawanaysa xogli aad baad u mahadsan tahay maasha Allah. sida tatal ku aragteen ba maanta waxaan wadaa hambalyo maasha Allah. mabruuk ayaan leeyahay walaalkay Soomaaliyeed iyo gabadha Soomaaliyeed farxadooda ayaa la wadaagaynaa maasha Allah. lamaanaha quruxda badan rashka boy iyo asmacday waxaan leeyahay arooskii lagu qeera ilaahay ka dhigo gabar iyo caano wiil iyo caano maasha Allah ayaan leeyahay. waxa ku dhahay wixii la soo socdo wixii sheekada la soo wadaba oo barnaamijka la soo hayaba maasha Allah waad ku guuleysateen. maanta nikaaxina uu ka dhacay wadanka Nairobi maasha Allah. asxaabta sharafta leh waxaan leeyahay farxadaas commentiga ku soo qora rashka boy iyo asmacday u soo duceeya. rashka adna waxaan ku leeyahay guurkaadi hore maadaama aad xabsa caday ah kala tagteen oo social media lagu ogyahay maanta gabadhi labaad waa Soomaaliyeed waxaan ku leeyahay wiil Soomaaliyeed tahay waa inaad saas u xajisaa saas inaad u xajisid waaye. asma haday ka soo sheegata ku dhahay gabar Soomaaliyeed kuma guursanaysee Ugandese la soo raasa ama qabiilada kale. asman waa gabar maasha Allah oo adkaysi badan geelka jaceelkii ay wiilka ay jeclaatay rashka boy way ku guuleysatay wayna adkaysatay maasha Allah. asxaabtu waxaan ii sheegaa mararka qaarkood waxaa jiro wax calaf la dhahayo iyo wax isfaham waa labada qof hadday isfahmi waayeen waxaa laga yaabaa labadaas qofood kale inay isfahmaan. inaan dhahna ma ahan Soomaalida ay maxaa la dhahay ii sheeg saas waay ka waay loo duceeyo. adduunku waxa meel lagu maraa waa duco. arooskii cusub maadaama uu ay gashay gabadheen walaasheena waa inaan u duceynaa waa inaan niyada ka jibina ma ahan waa inaan dhana hore u soco. arooska ciyaar maaha guurkan ciyaar maahan. rashka waxaan ku leeyahay dadaal fiican baa laga rabaa inaad dadaashid maasha Allah. waxaan ku leeyahay Soomaalida waa dad dhiig badan waa dad macnaha oo jecel inay qofka guwaabiyaan qaylada iyo xanaaqa iyo caayda wax waaye waa qof la jecel yahay ma fahanteen. marka asxaabta sharafta leh waxaan rabaa inaad u soo duceyseen wiilka walaalkay ah oo arooska cusub iyo gabadha waxaan ku leeyahay adna rashka waxaa la rabaa sasina ugu dhaganaatid. asma haday ku deyso wabiga badda wabiga meel la daday isku rid ma fahanteen. dadka isfaham ilaahay ka dhigo guurku waxa laga yaabaa qofka koowaad inay isfaham waayaan oo isku dabeecad naqawaayaan ma ahan muhiim inuu qofkan xun yahay. marka insha Allah waxaan leeyahay inaad u soo duceysaan ayaan jeclahay. asxaabay marka waxaan leeyahay waa inaad u soo duceysaan walaalkay iyo gabadh walaashay asmo aniga meesha waxa u soo fariista hambalyo hambalyadaas iyo mabruuk ayaan leeyahay. arooskiina aroos lagu qeero wiil iyo caano gabar iyo caano maasha Allah. waxaan jeclahay wax qurux badan inaad umada la imaan doontiin inaad isku dulqaatiin inaad isku sabartiin sidaan rajeynayo. asmo waa gabar degan maasha Allah. waxaan ku leeyahay sideedaba asmoy adiga kula dardaarmaya gabadha ayaa wax walba dhaqdo oo sabarto waa inaad sabartaa oo gurigaada xajistaa. ay badan dhibaato badan boo soo dulqaatay reerkaadana waa inaad u dulqaataa ood maasha Allah naqataa gabar reerkeeda xafido oo adkaysato ilaahay ka dhiga ku leeyahay. aniga duca iyo waanaba waa dhigay rashko adna waxaan ku leeyahay gabadhaas walaasha ah waa inaad xifdisaa oo adkaysataa. ay badan iyo dulqaad badan waa soo yeelatay maasha Allah. haddana waxaan ku leeyahay gurigaada iyo guurkaada cusubba ilaahay insha Allah wax khayr qaba ilaahay ka nii kala siiyo wax khayr qaban Allah kaaga dhigo. Soomaali ummadana Maxamed waan jecelahay waan salaame waxaan rajeynayaa inaad nolol qurux badan nolol farxad leh inaad ku wada noolaan doontiin. dadka caynay rashka boy waxaan jeclahay inaad caayda ka dhaaftiin. aniga ahaan Leila ahaan waa aroos cusub wiilka Soomaaliyeed walaalkeena waa inuu duceynaa gabadha walaasheena oo duceynaa. xabsi cid la dhalata malaha rashil cid la dhashtay malahan anaga hadii gabadhan la soo dulmiyo waa qaylineena. hadda laakiin wixii waa laga soo tagay waa aroos cusub ha loo duceeyaan leeyahay yaan lagu buuqin yaan lagu qaylinin. asxaabta cid ila raacsan waxaan rabaa inaad commentiga iigu soo qortiin
sidaad u aragtiin ra'yigayga cayda badan wax uma toosiso waxbay halaysaa qofka waxaa fiican in loo soo duceeyo ducada meel lagu gaaraa aniga waxaa aaminsanahay ducada in meel lagu gaaro qofka haddaa maanta dhan caysid wixii tagay wixii hore waa baxeen xabsana waa gabar yar horteeda mustaqbal u raadsanaysaa insha allah iyadan waxaan jeclahay nolol qurux badan farxad inay gasho qofka hadday isfaham waayeen xabso waxaa laga yaabaa in wiil ay isfahmaan ay hesho rashin asoo isfaham waaya xabso waxay helaysaa wuxuu helay gabar ay isfahmeen insha allah labadoodana hadday isguursadeen dadkii isfahmay ilaahay ha ka dhigo maadaama ay bilooyin uu soo wada socdeen ay dibcigooda kulley dad isfahansan ay naqdeen marka dad ay isfahansanin isma guursadaan marka dadkii isfahmo ilaahay ha ka dhigo marka asxaabta waxaa rabaa ducada ubaxa waxaan ku dhahay rooga casaanka rashka boyn loo daadiyo waaye iyo asmacdeey waa inaan la caaynin la ciilciilin aniga taasaa aaminsanahay waayo meel uu xabso ku xumeynayo uu guri kula galayo uu ku dhibaateynayo ma arkaynin xabso si qurux badan ay usoo hadashay asaga rashka boy si qurux badan oo usoo hadlay xabsana waa u helinay maantana waxaa u helinaynaa asmo waayo labada gabdhood waa gabdho walaalina soomaaliyeed marka waxaan leeyahay video inaan igu dheereeyo mar rabo videoga wuxuu xisaabsan yahay farxad aaweed wallaahi labadoodba cidaan aqaano kuma jiraan laakiin farxadooda halkaan waa faraxsanahay gabar walba soomaaliyeed iyo wiil walba soomaaliyeed isguursanahay aad baa ugu faraxsanahay farxadeyda waa inay ila soo wadaagtaan inta videoga iyo video labaad isku arkeen waxaan leeyahay khayr baan rajeynayaa mac salaama